nidaamka doorashooyinka sharciyada iyo waxyaabaha shuruudaha la isaga baahan yahay iyo xaaladaha guud ee ka caloosan Ethiopia iyo ta gobolkeena inaan isla yar socodsiino. kusoo dhawaada waa anigoo Maxamuud Ugaas oo in kala hadlaya bodka Facebook ee magaciisu yahay Kacdoonka Shacabka. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta si yara teltela oo yara hordhacan u faalayn doonaa barnaamijka ku saabsan doorashooyinka iyo sharciga doorashooyinka cusub. laakiin la dhowr qaybood dambe ay noqon oo qodobada ugu waaweyn ee muhiimka ah in laga taxadaro u baahan aan si fiican uga hadli doonaa. howlahaasna waa howlaha u yaala xisbiyada siyaasiga ah inay dadka intaysan doorashooyinka bilaaban kasii dhaadhiciyaan tallaabooyinka la qaadi doono siday muhiim u yihiin. waa tahay sharciga doorashooyinku artikaladiisa 1, 2, 3 waa arar guud oo iska caan ah. wuxuu ka bilaabanayaa faahfaahintiisu qodobka 4 ee xeerka doorashooyinka Ethiopia. qodobka 4 waa iska kooban yahay qodiisu يعني electoral system habka يعني doorashooyinku ay u go'aan qaadanayaan buu ka hadlayaa. taasna waxa weeye majority-ga ciddii ku guuleysata tirada marka lagu tiriyo meesha lagu qaaday codka ayaa macnaheedu yaa guuleysanaya oo xisbigii guusha ay raacday ay noqonaysa ka ugu tiro badan saa uu noqonaya. haddii xeer hoosaad uu damco regionku inuu soo saaro xeer hoosaadkaasi kama hor iman karayo xeerkii guud ee Ethiopia 65 bog ka koobnaa 22 qodobna ahaa. marka labada qodob buu xeerku ka hadlayaa. 1 article 5 ama xeerka shanaad election principles mabda'yada xalaasha ah ku soconaya doorashooyinku. waxa weeye waa dhowr qodob 1, 2, 3, 4 waxa ugu muhiimsan 4 wuxuu sheegayaa sub article 4 oo article 5 ah wuxuu sheegayaa inaan cidnana lagu khasbi karin inay is soo sharaxdo, cidnana aan lagu khasbi karin inuu wax doorto. inaad coddo waa xorriyad taa daarto waa iska dayn kartaa. inaad yani aad is soo sharaxin oo aadan dhihin waan is soo sharaxayaa xisbi hebel baan soo sharaxay ama shacab baan soo sharaxina ana lagu khasbi karin ayuu sheegaya. qodobkaasi waxaan uga degayaa dhalinyaro fara badan oo xafiisyo mas'uul ka ah ayaa aad iyo aad xisbiyada qaarkood ay ku khasbayaan inay soo sharaxaan. waayo ninka waxaa laga yaabaa inuu iska yahay la jecel yahay degmadiisii laga yaqaano marka lagu cagfulaynaya xafiiskiisii iyo waxa inuu ka tago oo maaragtay macnaheedu hadduu uu sharaxi waayo xisbiga ka mid noqon waayo shaqadiisii buu seegaya. xeerka guud ee Ethiopia markii laga doodayay la sameynayay qodob aad loogu dooday oo waxaaba jiray ahaa qofka hadduu is soo sharaxayo xafiiska uu ka shaqeynaya ee public ah uu inuu iska casilo. marka haddaaba lagu khasbay xisbi inaad gasho oo soo sharaxdo kulli shaqadaadii waad ka tegi qodobkaas meesha yaalaba. marka iyadoo qodobkaas meesha yaalo oo aadan shaqadaasi haysan karin haddaad musharax noqoto yaan lagu khasbin xisbi aad rabin cid aad rabin inay ku sharaxdaan yaan lagu khasb xor baad u tahay. 1 qodobka shanaad ee doorashooyinku intaasaa ugu muhiimsan. si teltelan u wadaynaa qodob kale oo muhiim ah jira article-ka 13aad waxa weeye meesha lagu cod bixinaya hal shakhsi ka soo bixi karo parliamentarian waa maxay constituency baa la yiraahdaa. yani aaga uu hal shakhsi oo parliamentarian ka soo bixi karo ama regional ha noqdo parliamentarian ama federal ha noqdo xildhibaankaas hal shakhsi meesha ka soo bixi karayo. go'aanka hore positionada noocaas oo tirada dadka Ethiopia guud lagu saleynayo oo kuraasta la rabo hadda federaalka kale inayna 550 ka badanin marnaba ay tahay. waxaa go'aaminaya guddiga doorashooyinka guud ee Ethiopia iyo dastuurka oo sharci baa jiray la raaci doono. waxba xeer hoosaad gobolka uu leeyahay oo dhigi kara meeshaas intaas qof ka soo bixi karayaan ma jirto.
okay laakiin sub article 4 iyo sub article 7 yaa muhiim ah yani meesha constituency-ga laga dooranayo ee hal qof ka soo bixi karayo waa articleka 13 ee doorashooyinka wax ka hadlaya sub article 4 qodob hoosaadka 4 iyo qodob hoosaadka 7 waxay leeyihiin mid waliba saddex qof oo guddi ah oo chief electoral officer uu mas'uul ka yahay macnaheedu ninka mas'uulka ka ah doorashooyinka goobtaas saddex qof ka kooban oo saddexda qofba ay independent ay yihiin dad madax bannaan oo siyaasad ka madax bannaan in seejo walba loo sameeyo wey seejada waa yani constituency waa meesha hal qof ka bixi karayo goob doorasho meesha hal qof ka soo codbixi karo waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban codbixinooda oo goobo codbixinooda inay yeelataa dhici karta marka dhowr iyo tobanka codbixinoodoo la isku daray qodob kale aan ka hadli doonaa ee hal qof ka soo baxayo wuxuu yeelanayaa guddi la yiraahdo electoral commission chief executive waxaan wadaa election execution committee waxa way waa guddiga fulinta ee doorashooyinka oo goobtaas ah saddex qof ka kooban yahay saddexdaba waa inay noqdaan independent siyaasad ayna gelin waa kow qodobka isla sub article 7 wuxuu sii leeyahay guddi qaada dacwadaha inta doorashooyinkuba socdaan waa inuu sub article sii yeesho guddiga hore ninka uu ahaa hogaamiyaha ama chiefka ayaa kan hogaaminaya laakiin laba qof oo madax bannaan ayaa iyagana la gelinaya marka guddigaasi wuxuu anshaxa iyo nidaamka doorashada u socdo registrationka goobuhu ku wareegayaa waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban polling station ama goob codbixineed inuu ka kooban yahay halkii constituency-ba kuwaasay marka ku wareegayaan oo maaragtay ay la xalinayaan oo kormeer us noqonayaan waxay hubsanayaan observerskii internationalka ahaa ama kuwa eegayay ee caalamiga inay joogaan kuwa localka eegayey oo wada private ah oo aan shaqo ku lahayn business iyo maxaan ku idhahdaay siyaasad xisbina raacsanayn inay meeshii goobjoog ku yihiin bay hubinayaan registrationku sida u socday hubinayaan marka article 13 aad buu yuu u faahfaahsan yahay intaasan aan kusoo koobi karaynaa waxaa kaloo jira qodobka 15 waan ka boodboodayaa qodobada ma generaalka ah ama macno weyn inoo samaynaynin inkastoo marka hanuuninta ay jawaaduhu bilaabaan ama xisbiyadu ilaa maanta qodobadan oo dhanba dadka inay guddiyada u noqonaya ama qof walba meesha mas'uul uga noqonaya inay ay ka dhaadhiciyaan haddana hadda si yar teelteela oo dhiirigelin macne hawl loo baahan yahay inay tahay soo socota awey waxaan u sheegayo qodobka 15 yani sida polling stationka loo abuurayo meelaha goob codbixineedyada sida loo abuurayo isaga qudhiisu sharcigu wuxuu qorayaa in la samayn karayo polling station ama goob codbixineed oo mobile ah sida heer guraaga loogu talagalay oona meel deganayn ama guurguuri karaya oo kolba meesha miyiga dadku u degan yihiin ceelkii tuuladii deegaankii ay aadi karayaan iyo meel stationary ama cayiman oo aan guurayno magaalooyinka iyo tuulooyinka rasmiga u degan loogu talagalay ayuu yeelanayaa meelaha goobta codbixinta qodobka muhiimka ah waxaa weeye qodobkaasi lagama dhigi karayo military base xero military lagama dhigi karo xero boolis lagama dhigi karo kiniisad masaajid lagama dhigi karo meelaha khamriga lagu iibiya lagama dhigi karayo marka meelo madax bannaan oo iskuul oo kale ah ama goob la dhisay oo guri ah ama meel la ijaaray ama makhaayad soomaaliya haddii macnihii ay bixin karto in la ijaaro meel private ah oo ka madax bannaan diin iyo siyaasad inay noqoto iyo military ka madax bannaan haba yaraatee goob military iyo goob boolice labadaas inaga macno inoo samaynaysa polling station cod lagu bixiya lagama dhigi karayo inkastoo qodob kale jiro oo odhanaya haddii dadka codka bixinaya ay yihiin boolice iyo military xero shishe oo aan kasoo gaari karaynin goob codbixinta ay jiraan in meelo gaar oo cod ku bixiyaan loo cayimi karayo haddana inaga kuwaas inama saameynayaan okay qodobka 18 marka sida dadku codka bixinaya loo diiwaangelinaya ayuu ka hadlayaa diiwaangelinta qofka la diiwaangelinaya codka bixinaya waa inuu noqdo Ethiopian
وين 18 جر يكوي نقضه وين مسكحة كفيوية أوكي مركب محل قرنا إنه إثيوبيان يهي مركب صدح صفو أفر صفو يالانية وحوي كو قفك وإنه ماشا وماركتي كوبحنا يعودك وكارتكيسي اي دي جي متاوقيه هايستو كو متاوقيه هدونا هايسرنين وإنه هايسان كرا كارد أرضين نمو أما كارد ليسن كدراول نماذا أما كارد بوليس كارد ميلتري واحد ولد أي شو جريسي أو كلا وإنه هايسن كري حتى يدعضو إنه أنت هايسنين maxaa xal ah waxaa la guddigii constituency-ga meesha laga soo baxayo codbixintu ka socoto mas-uulka ka ahaa polling station walba guddi yaroo 3 qof ay u sameeyeen oo 3 qofna ay weheliso xisbi walba oo ka tartamaya qof wakiil u ah oo u taagan marka guddigaas oo wada jiraay waa in ansixiyaan qofkaas inuu deegaan yahay oo la garanayo oo meesha u dhashay oo meesha degan yahay marka ID la ansixiyo ama inta ID waaye say shakhsi ahaan loo garto la qoro magaciisii la yiraahdo hadii rabo loo abtiriyo ama qabiil hal loo geliyo dabada ama meesha uu degan yahay magac baa laga qori warqadu ku cod bixiyaa la siinaya laakiin waxa shardi ah 6 sano 6 bilood 6 bilood la soo dhaafay inuu meesha deganaa qofka cod ka bixinayo ama ID ha haysto ama darawalnimo leesan ha haysto ama ardaynimo ha haysto ama hal la jarto intuu haysan waay hal la jarto waa inuu maaragtay yiraahdaa 6 bilood waan deganaa oo taana la xaqiijiyo marka qodobada ugu muhiimsan iyagoo oo inta ay ahaayeen waan inta ku ekayn waxaan barnaamijyada soo socda u qaadan doonaa inaan intaan article u qaadano mid u dhamaystirno faahfaahino in marka dadkii haddii jabaaduhu ka gaari waayaan inay wacyigeliyaan intaas bal aasaas iyo gundhig inoo noqoto meel walba laga heli karaa haddaad google-ka qofka internet haysta ay galo isagoo af ingiriis ku qoran buu heli karaa isagoo af xabash ku qoran af soomaali weli laguma qorin af soomaalina ta ku qorna mooyaan waxaa aad iyo aad muhiim u ah dadku inay ogaadaan qofka degmo degan tuulo degan magaalo degan codka uu bixinaya waa inuu meeshaan 6 bilood tiraado waan deganaa waana inuu mataaqoyi la yimaado mataaqoyi hadduu la iman waayo waa inuu ama kaadh arday kaadh booliis kaadh military ama kaadhka darawalnimada la yimaado intaa hadduu la iman waayo meesha cod kama bixin karayo hadduu magaalo joogo hadduu miyi joogo oo reer guuraa yahay ayaa waxaa loo ogol yahay polling stationka ama goobta cod bixinta qofkii guddiga u ahaayey iyo raggii mucaaradka xisbiyada tartamaya ee goobjooga ahaa inay wada gartaan oo qiraan ninkan deegaanka ma yahay wuu yahay oo saa lagu qoro saa cod ku bixiyo marka qaybtii koowaad baa intaa inoogu dhammaatay maanta waan faahfaahin doonaa insha allah qaybaha dambe 2 3 4 ilaa 4 qaybood dambe way noqon insha allah kusoo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu